musharaxiinta qaranka haweenka ee uga tartamaya siyaasadeedka wadani. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحن سلام يا مركه هره قدوميها ورودوينها وداني أهنا مدحوينها مستقبلك كيلو قدومية كيليكا يوقف بلادن قيمها له لا صعدا يا رجال لما وحوض السلام يا madaxda siyaasadeedka wadani heer gobol iyo heer qaranba. waxaan kale oo salaamayaa dadweynaha qiimaha iyo qadarinta mudan ee halkan isugu yimiday madashani quruxda badan ee aan isku shaacinayno aniga oo ah qofkii ugu horreeyay ee isku soo sharaxda golaha deegaanka. hal sano ka hor ayay ahayd in aan sheegay inaan ka qayb gali doono musharaxiinta golaha deegaanka. mar labaad waxaan u sheegayaa maantana in ay weli iga go'an tahay in aan u taaganahay tartankaa inaan ka qayb galo. waxaan ilaahay ka baryayaa in aan ku guulaysto. waxa aniga aan rabaa in aan u qabto gobolkayga wax inaan u qabto la taaban karo oon tuso in haweenku ay wax qaban karaan. maadaama haweenku ay yihiin lafdabarta bulshada ummadda Soomaaliyeed, waxa aan sheegayaa waxaan doonayaa in aan tuso waxqabadkayga, in aan tuso oo aan gidaafada iyo qashinka magaalada Boorama ee aan la mari karin meel kasta yaala in aan maxaan ku idhahdaa ka nadiifiyo, in aan u sameeyo barnaamij aan meel walba ama xaafad walba handhigayo wax qashinka la isaga qaado. waayo waynu aragnaa barnaamijyadii loo sameeyey in biyaha ay naga qaadaan oo ay biyaha ka saaraan magaalada, inta qashin laga buuxiyey ayay gudihii ku soo fataheen. sidaa darteed waxaa aniga iga go'an in aan ka shaqeeyo nadaafadda iyo bilicda maxaan ku idhahdaa gobolka. waayo dumar haweenku waxa weeyaan bilic hadday noqoto iyo qurxin hadday noqoto iyo nadaafad hadday noqoto waxaan u malaynaya inay ragga wanaagsan yihiin ragga. waxaan doonayaa in aan tuso oo waxqabad la taaban karo ama taariikhda geli karaa in aan ka qabto waddankan haddii aad doorataan codkiinay ku xidhan tahay. waxaan aad loogu rajo weynahay gobolkan maxaan ku idhahdaa magaalada Boorama magaala madaxda Awdal. waxaan aad baan taageerayaal badan iyo dad maaragtay ugu leeyahay aad mariyooyin taageersan yihiin. waxaana ku rajo weynaa qalka isiin doontaan anna aad ila xisaabtami doontaan bulshooyinka qaybaha ka tirsan waxaan ku samayn doonaa. waxaan idinku ballan qaadayaa in aynu kulan joogto ah yeelan doono oo aynaan kala go'i doonin, dowladda hoose iyo bulshadu aanay dib u kala guyi doonin oo wada tashan doono. dhalinyarada inima iloobin isboortiga daba waan ku leeyahay. marka waxa weeyaan isboortiga inaan ka igno isboortiga waa kulligood wada garanaysiin. aniguna dabaan ku lahayo isboortiga waxbaan ka soo ahaan jiray. sidaa darteed waxaan doonayaa isboortiga in aan tayayno garoomada loo kordhiyo. isboortigu maaha football iyo basketball oo keliya hata ciyaarihii fudfududaa oo dhan way naga maqan yihiin. waad aragtay biladaha lagu qaadanayo olombikii maxaan ku idhahdaa bishan socday. waxaan doonayaa in aan isboorti tayada adduunyada ka qayb gala in ay soo baxaan oon u tababarno, iyadoo maalmaha dambe ay dhagahayga ku soo dhacayeen dad badan oo aad u orda oo tuulooyinka laga sheegayo ama booda. markaa dhalinyaradana wax badan ayaan haddii ilaahay yidhaahdo shaqa abuur hadday tahay haweenka maylooyin bacadka fadhiya ee tamaanada ku iibinaya ee dayacan ee buugii
iyo bacadka ee mas'uul haysan ee kaliya xanuunka qaaday mas'uul la'aan waxa weeyaan iyagana sidii aan ugu samayn lahayn مسخرة أيضاً مسخشة هي بعضها هي هم كبريس هي ذا يكون كرنسية تمانده إنه حوالي أمير بيقول يلا بعضها ولا ركتين هواك ما قال كلام كل ما كيوه ويجي واحد كان يحرم بالورقات وحلو داعي مسخرة وحلو داعي ما لا يكون الحمد لله لا يكون يستان وحلو داعي ما لا يكون يستان يكون كلام وحاولنا وحضرنا إن شاء الله هذا الكوان كلنا عليه إلا ما يلاقي دوره بالشدة قيله هذا أنا بقى محمدن دوره دمان حولها نخسية كلها تلقى كخسية أنا يلان عندنا حلول شوف تأ on مرور بقى ورسكيل دوره السلام عليكم دمانتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته